lagu soo furay aabaheeda garab ordaayo hooyadeeda garab ordaysa caanadeeda garab ordaysa dalqadeeda bixi dalqadeeda la sii ma maqashii stress ugu furan adiga aad iyo aad u weyn ayaan furan iyadoo 6 bil ur aabwaan ma helan bana furan ee goorta furan garanay bas ma aabaheeda qad ku jiro waxa laga oranaa ku furma doonaysa ha waa habiyad ku jiro soo heshiisiin ha okay ma go'do naag lama qabay ma loo qabay Soomaan ha waa diyaar asku soo noqon waaga loo bilaabay وهو يضرب الواحد كنا جاي يسمع الهبيب كلام تدقوا على الصبح وكان قضية وصل كلام صار الصبح ضروا أي مصري حنقطع بتشتغل وأبو بريد غدي ده السنين وين ما ضغطنا ورا ولا على ويدين الله بحرت مركب عبيد المقطع حكوي المركب خديجو محمود لو طل قضاء كفر على المركب هذا هو مقشر صومان قضية خدك وحتوه على الرجل هذا بس أنا كفر على الملايين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين أمن لك وفيشيال سلام كدي بمد الصومالية ذا وحن لي أبصنا ما أنت أركي أو ميريها كبوحة وأميرة وذجدي هراء ويركيركا أي دشة أميرة قرح أبيس ننكس وين قرية جفور كلادو جدان وحو أصف فريستي مركي أنت أسوس نضاد ويركيركا لو كورية جواد ناس كليجت كوريسي إنه ما أنت عيبة أسماية أو عايو ninka ragga hadday xaaska dhibaato kala dhex marto wax kastoo kala dhex maro wuu afiyaa miiriya inuu soo fadhiistan ka xumaha aad baa uga xumaa inay amiira waxaan soo gaaraan amiira sorry ilmahaaga yarkaad ku soo rafaaday aabihiis inaad waxaan kala kulato waa nin Soomaaliin wax kasta lagala kulmaa way u badan yihiin ragga Soomaaliyeed inay dumarka waliba markay awlaad soo kala dhex maraan ay ceebo u sameeyaan wax kasta oo gabadhaasi qabtay Soomaad qarsaneen intaasoo sanadood saacadooshada kuma jirin waxa maanta ugu soo fariisatay ayda uga dhigtay ceeb uga dhigtay waliba aad leedahay xitaa laba nin bay soo guursatay siday dambi gashay oo ma ka gubtay Amiira haddii ay laba nin soo guursatay Soomaali bay kala mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed intooda badan guurka uga xumaaday way guursatay may dhilaysan xaaraan ma ay gelin guur baatiri way guursataa tir guurna goortu ceeb noqdo ma naqaano walaalo nin weyn baataa intaas la egtaa intaasoo sanadood baa xaaladaada aan kala soconin miiriyaha hadda ka hor baad amiira ka oohisay aniga reer Malaysia runtii ma jeclina u hiiliyo hiil igama ah laakiin hiilkan maanta amiira ugu hiilna waxay tahay dumarnimo hooyanimo waan dareensanahay dhibaatada ilmaha yarka la soo martay markii kaliga soo korisay wax badan baan la ogsoonin hadda ka hor marka la dagaalantay oo muxuu ahaa miidiyaha siga jawaabayseen dumarramaan ugu hiilinaya maanta amiiro waad ka khaldantahay niyow nin weyn baa tahay inaad isku xishootaa kuu fiican inaa maxaba lacag bay ka qaadatay iyo waan furay iyo waa la soo guursaday iyo hawlahaas aad la soo gasho iyo walaasheed bay fadhigeeda seexan jirtay yaa Soomaali baan nahay haddii duruufo jiraan fadhi baa tiri meel kasta la seexanay guriga walaasheed Soomaali seexanay meel kale seexanaysay maxaa ceeb ka dhigay haddii fadhiga walaasheed seexan jirtay صحاف بعد دبا قرية كان رادي ونيو عيب رادي نسن وين وقفورك انت اسلاقي هباتا ويلكا غيركا نول هو يديس وين قفتن وهو يديس والمها غيركا مستقبل كيسا كاسا بريت كمان وحن دغيسن دونا المها غيركا هدي ديغاغا يا عقددها اسكي جليني هدي علي هذا ما اوهو غبدان وا xumaan bay sameeyso oo rabtayna ceeb u sameeysid Ilaahay subhanahu wa ta'ala ceebaha u raadinaysid wuu ku tusi doonaa wuu kugu soo celin doonaa gabar hooyo Soomaaliyeed oo ilmo yar kaligeed soo korinaysa oo miiriyaha inta soo sanado lagala socday inta u soo fariisatay ceeb u sameysaniyo wad ku khaldan tahay aad ba ugu khaldan tahay qof allaale qofka ku taageerana wuu khaldan yahay waayo waa hooyo Soomaaliyeed dhibaato ilmeedu ku soo korsatay wixii idinka dhaxeeya laakiin miiri inta u soo fariisato aad saacadan ilmo yaraaba meeqasano hadda jira ugu yaraan 5 sano uma leeyahay inuu jira hadda ilmaha yar inta soo sanadood bay kaligeed soo korsanaysa ma ku ixtiraami weyday ilmahaaga yarka dhiigaaga ma ku ixtiraami weyday inta soo fadhiistaa tiraade amiira saana heediya amiira kan heediya adna sidana heediya kana sidana war qoysaska islaamka wax khalaaf uu soo kala dhixgali kara aanni ninkeeda way isdiri karaan in xabsi uu iman kara ceeb ma waxa soo dhan way dhacdaa Soomaali bay ka dhacdaa inay maxay ahaa booliisku yeerto in la xiro in wax way dhacdaan wax fiican ma laakiin way dhacdaa waxa ceeb uga dhigayso qoys dhan oo nool oo wada jooga bal waxa u soo fariisanaysa media gabadha hadaa furtay nabadgeli waxaan ka yaabay nimanka Soomaaliyeed dhibaatadooda intooda badan gabar bay furayaan ilmay la soo rafaadaysa iyadii culeyskeeda culeys ugu darayaan waxyaabaha iga xanaajiyana uga hadlay maanta amiira
nolosha ay gabadha hooyada kaligeed maraysa ilaahay subxaana wa tacaala og dhibaatadii la soo martay ilaahay baa og ayadoo rafaadkaas la soo martay inta halka soo fadhiisatay inaad tiraahdo waa la soo guursaday waa la soo furay maxaa afaaraheedii iyo arrimaheeda ku geliyey waaba isfurtay 3 baan ku furaa sheegaysaa maxaa ku daba dhigay maxaa ku geeyey waxba kaama gelin haddii la soo furay haddii la guursado waa la guursado at least way guursanaysaaba ceeb ma samaynayso wayba guursatay haddii bay guursatay ma ceeb ay samayso ilaahum 10 nin guursadaan war guurka ilaahay baa baneeyay furitaankana ilaahay baa baneeyay nolol baa soo wada marteen ilma idinka dhaxeeyo si kasta u soo dhaxmara qoys kasta Soomaaliyeed hawlaha soo kala dhaxmaray waxba soo kala dhaxmaray nin raga ilaahay ka dhigaya lagaaga aqli badan media niyo hadda wixii ka dambeeyay daba qabo waxaan aad ka hadlaysid iyo gabadhan arinteeda aad ka sheekeynaysid ilmahaaga hooyadood bari ka maalin wiilkaaga arinta uu dhigeysan doona niyo hob yaan eebahana sameynaysa iyo kula tarax tagin yay miiriyaha noqonin inaad waxyaabo badan soo quftid haddii runtahay haddii been tahayba already waa kala tagteen waa isqabteen waa kala tagteen waa kala dhamaateen waxba gabadha ceebaha u sameyn maxaad ceebo ugu sameynaysaa maxaa ugu raadinaysaa ceebo inta xal eegta bal inta la eegta inta soo fadhiisata leedahay Amira nin soo guursatay Amira saan soo sameysay Amira inta seexan jirtay fadhiga walaasheed nin weyna tahay maxad ku hadlaysay fadhiga walaasheed bay seexan jirtay war musqusha walaasheed ma seexata haday rabto soo guriga walaasheed ma joogin hadda familigaaga iyo raabtiga iyo cidda aad leedahay gabadhan maftiyada la joogtay aad u geysayna waa markaa guursatay Soomaa markaa guursatay adigana meel wad geyn kartaa because ninkeedii baa tahay marka wax ceeba meesha kuma jiro waxa ceebaha ka dhigaysa meesha kuma jiro gabadha yarta miskiinta ee ilmaheeda korsanaysa amaan gali ilmahaas yarka saqiirka ee ku hayso ku ixtiraam ceebaha ka daa adduunka ilaahay nimanka Soomaaliyeed qaarkood waana ma dhahayo nimanka Soomaaliyeed oo dhan laakiin badankood ciladu waxa leedihiin gabadhii ilmaha idin dhashay maba ka daba hartaanba illa ay isku daydaan inaad ceebtiina gabadhii marba la saaraya waa dabeecada Soomaalida leeyihiin in qofka bini aadmiga ceebta hore laga saaro ma la fiirinayo labada dhinac lama dhageysanayo lama dhahayo sida rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam yiri laba dhinac waa inaad dhageysatid mid ka run sheegay ma ogid marka inuu halkan soo fadhiistay afaaraheedii iyo nolosheedii dakhliga ah ka sheekeeyo ama wixii soo kala dhexmarka soo kala adaa is ceebeeyo gafuur weyno intaas la egta xoog ku leeyahay wiilkaaga ado Mareykan jooga iyada Malaysia ku korinaysa oo Malaysia ku haysi oo nolol baba ila soo martay ka sheekeynaysa hadda koor markay inta ka weynaysa hadda u soo fadhiisatay ceebo u sameynaysa war ceebta ka daaya gabdhaha islaamka yaaqay war gabdhaha Soomaaliyeed ha idinka amaan heleen hooyooyinkan ilmaha la rafaadsan kaligood ha idinka amaan heleen rago a'uudu billaahi salaamu calaykum